القادر المعلم محمد جيدي xildhibaan cabdulqaadir macalin maxamed geedi runtii maantay waxaan isleeyahay waa maalin taariikhi ah waxa weeye waxaana guulaystay iraadadii baarlamaanka iyo iraadadii shacabka ayaa guulaystay insha Allah waa la soo maray dadaal fara badan dhib fara badan ayaa la soo maray waxyaalaha in arrimuhu saa u adkaadaan keenayna waxaa ka mid ah in maaragtay maxaan ku dhahay markastoo la yiraahdo dawladda waa la yeeraynayaa ama dawlad tayada iyo dad karti laha la keenayaa inay maaragtay dad fara badan inay arrimahaas caqabad ay hor dhigaan oo maaragtay maxaan ku radaa ay isbaaro u dhigtaan in ay ku dadaalaan laakiin alxamdulillah isbaaradaas way burburtay waana la qaaday waxaana ka rajaynaynaa maaragtay ra'iisul wasaaraha cusub inuu maaragtay xoogga saaro baahida tirada badan ee hortaala inay noqoto dawladdaani dawlad dood iyo muran aysan noqonin inay noqoto dawlad shaqaysa in ay noqoto maaragtay dawlad la xisaabtanta golaheeda wasiirada la xisaabtanta inay noqoto dawlad corruption kala dagaalanta inay noqoto dawlad maxaan ku iraahdaa xuquuqda shacabka ilaalisa inay noqoto dawlad maaragtay maxaan ku iraahdaa ku dadaasho si dalkan loo nabadayn lahaa iyo magaaladan inay ku dadaasho qaxootiyaasha iyo dadka ku barakacay magaalada gudaheeda iyo banaankeeda si gudaha loogu soo celin lahaa inay ku dadaasho maxaan ku iraahdaa inay xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed oo dhan siday u ilaalin lahayd haday ku banaanka jira iyo haday kuwa gudaha joogaba yihiin oo meel kasta ku dacdaraysan inay ilaaliso waqtiga haray waxaan rajaynayaa insha Allah in shacabka loo shaqeeyo kaaga aad u qurux badan yahay laakiin hadal la iska dhaha macno weyn ma sameeynayo tan iyo taa shacabka dhibaatay la kulmayeen qaraar qura xildhibaano ka hadlaya lama arkin dhibaatada shacabka gaaraysa iyagu aad bay u qurux badan yihiin oo sida aad u labisan yihiin oo tayle degan yihiin maxaa diidan nimankiinan quruxda badan ee guryaha quruxda badan ka soo kacaya shacabka barakacay inaad ka fakartaan mise waxaad isleedihiin shacabka dambe idinku ma jirto ma shakhsaas ma aha horta way jiraan oo dad fara badan oo danqanayn way jiraan dad fara badan oo maaragtay shaqadooda qaran aan gudanayn way jiraan meeshan waxaan qabaa mar walba amaana xumo iyo karti xumo iyo aqoon darro ayaa jirtay dawladahaas oo dhan waxay u fashalmayaan waxa weeye dadka xilka loo dhiibayo oo ah dad aan munaasab u ahayn dad aan ka soo bixi kartay uga soo baxaan lahayn xilka loo dhiibay xildhibaanada badankood waxay haystaan dhalashooyin kala duwan qurbahay ka yimaadeen waa dad caruurtooda dibadda ay jiraan aan dalka waxba u olin aan ka ahayn inay kursigaas ilaashadaan isla markaana ay ku faanaan ama ay ku maraan dalalka adduunka xildhibaan ayaan ahay adiga shakhsiyan markaan ka hadlayno Cabdulqaadir ahaan waxa ka mid tahay xildhibaanada qurbaawiga ah mise muwaadin dalka degan ayaa tahay markaan dhabta ka hadlayno qurbaawi maahi muwaadin dalka degan ayaan ahay waxbarasho inaan u tago waa laga yaabaa meel aan dheerayn laakiin anigu waxaan ahay muwaadin dalka jooga dhibaatada dadka la nool dadkiisa ay ku baaba'ayaan dantiisa ay ku baaba'ayso ayaan noloshaada intaad dalka joogtay waaba haddii aad joogtay dhibaatooyinkii aad marqaatisay ee aadka uga diirnaxday maxaa ka mid ahaa wallaahi horta dhibaatooyinka ugu fara badan ee mar walba aan ka naxo waxaa ka mid ah dadka maalin la arka dhimanaya kuwa ku dhimanaya wiiftada kuwa ku dhimanaya madaafiicida kuwa ku dhimanaya gaajada kuwa ku dhimanaya faqriga kuwa ku dhimanaya jahliga kuwa ku dhimanaya badaha kuwa ku dhimanaya daryeel la'aanta intaas ayaa ugu xanuun badan oo weliba aan la jiranahay weliba